Gabadha yartaa xornimadii ay dareemtay isla markiiba way burburtay. Caloosha ayay xanuun ka dareentay markii lagula soo tuuray qofiska qoryaha ah gabdhaha kale, loona sheegay inaysan wax sharkan ah samaynin. Haddii ay isku daydo inay baxsato, isla meeshaas ayaa lagu dili doonaa, kadibna dabka ayaa lagu tuurayaa. Waxay gacanta u gashay guruub tuuga ah, kuwaasoo wareegi jiray tuulooyinka iyagoo afduubanaya gabdhaha dhalinyarada, geyni jiray magaalooyinka waaweyn oo u iibinaya si addoomo ah oo ka gadanaya qof kasta oo lacag haystay. Meeshaas ayay tuugadii alaabtooda dhigteen, ayagoo ku nasanaya oo qorsheynaya meesha xigta ay wax ka soo afduubanayaan, taasoo ah isla gabadha tuuladii ay ku dhalatay. Nin tuulada u dhashay oo ceelka biyo u soo doontay ayaa hadalladooda maqlay, taasoo uu la yaabay, kadibna si tartiiba ayuu meeshii ugu soo dhaqaaqay. Wuxuu ku dhuuntay geed gadaashiis, kadibna si tartiiba ayuu u soo fiirshay, isagoo fiirinaya dadkan la yaab kale iyo meesha ay markaasi ku nasanayaan. Dad xun inay yihiin kumuusan fakaraynin ilaa uu ka arkay waxa ay meesha ku hayeen. Isagoo aad u naxsan ayuu bedelay ra'yigiisa ahaa inuu ceelka biyo ka shubto, oo isla markiiba wuxuu aaday dhinaca tuulada. Habeenkaasi roob ayaa bilowday, gabadhii yartaydna waxay fadhiisatay kuwa kale dhexdooda ayadoo isku dayaysay inay diiranaato. Kulligood hal qof oo kamid ah isku dayay inuu hadlo ma jiro, ayagoo markaasi dhaxan dareemaya, cabsina dareemaya. Gabadha yartaa waxay isweydiinaysay sababtay nolosheeda saan dhan ugu xun tahay, waxayna u xiistay waalidkeeda ayadoo si saa'ida ugu rajaynaysa inay dib ugu soo laabtaan nolosheeda. Markaas ayay ahayd markii ay maqasho qof magaceeda u yeeraya, kadibna si tartiib ayay indhaheeda u fuudhay ayadoo eegaysa dhinaca mugdiga. Qof ayaa bartaas joogay. Markii uu qofkii soo dhawaaday, waxay isku dayday inay aragto qofka uu yahay, kadibna waxay dareemtay cabsi saa'ida markay aragtay inuu yahay adeerkeedii meydka ahaa, oo kadibna bilaabay inuu iyada la hadlo. Hawalwelin gabadhaydii, ayuu ku dhahay, waxaanoo dhan mar dhow ayay dhammaan doonaan. Run ahaantii iyagu kuma iibin doonaan, sababtoo ah kuma baahna. Waxaan ka wadaa kuma baahnaan doonaan markii aad dhimatid. Markii intaa maqashay, gabadhii yartahay si saa'id ayay u qaylisay. Meesha abtigeedna waxaa isku bedelay mid ka mid ah tuugada, kaasoo bilaabay inuu ushiisa meesha ku garaaco. Aamus ayuu ku dhahay, mar kale haddaad hadashaan surka ayaa niga goyn doonaa. Gabdhaha kaloo meesha kula jira si xun ayay u eegeen. Gabadhii yartaydna murugo saa'id ayay dareentay, waxayna rabtay meesha in iskaga dhimataba. Subaxdii xigtay, mid ka mid ah tuugada oo maantoo dhan isha ku hayay tuulada ayaa wuxuu arkay dadkii tuuladoo dhan halka guriga ugu weyn meesha inay iskugu tageen. Waa arrin fiican ayuu markaasi ku fakeray. Dib ayuu u soo laabtay, waxayna markaasi bilaabeen inay qorsheeyaan. Jaanis wanaagsan ayuu ahaa, waxay awoodaan inay ka naxsadaan, kadibna hal meel ku ururiyaan, markaasna ragoo dhan ay ka dilaan. Habeenkii labaad markii la gaaray, nimankii tuugada ahayd waxay isku diyaariyeen inay tuulada galaan. Intaysa galinba nimankii oo dhan ayaa soo baxay, ayagoo dhammaantood ay wada wataan qoryo, dagaalna diyaar u ah. Way ogaayeen inay imanayaan tuugada, saas darteed ayay isku diyaariyeen. Mid ka mid ah madaxda ayaa u sheegay inay ka tiro badan yihiin, saas darteed ay u fiican tahay inay iska laabtaan oo ay iskaga baxaan meesha. Tuugada uma aysan xiisa qabin inay tagaan, waxayna siiyeen dadkii tuulada inay kala doortaan dhimasho ama inay isdhiibaan. Dadkii tuulada way caroodeen. Tani waa jaaniskiina ugu dambeeyay ayay dhaheen, taga, haddii kale waxaa ku qasbanaanaynaa inaan dilno. Ma anaga ayaana dilaysaan, ayay ku jawaabeen. Inigu waxba ma dilaysaan, anaga ayaana dilayno, ayay dhaheen. Waxaasna wixii xigay waxay ahayd sharganta falaaraha, kuwaasoo kor laga soo tuuray oo ay bilowday inay ku dhacdo mid walba oo nimanka tuulada iyadoo aan lala waayin. 3 ka mid ah kuwa tuugada ah oo xirfad lahaa ayaa waxay ku dhuumanayeen mugdiga, ayagoo sugaya kuwa kale intay tuulada galayaan oo ay banaanka u soo saarayaan dadka tuulada. Qorshahooda si fiican ayuu u hirgalay. Dhammaan nimankii tuulada waa ay wada dhinteen. Haddana nimanka tuugada kaliya ma aysan lahayn tuulada kaliya, waxay sidoo kale lahaayeen qof walba iyo wax walba oo tuuladaasi ku jiray.